waxay ahayd 3 galabnimo oo ay weheliso 20 daqiiqo xilligan oo kale 8760 saacadood 365 maalmood oo u dhiganta hal sano oo gabah ayaa ka soo wareegtay qarxii 14 Oktoobar ee sanadkii tagay ka dhacay halkan oo ah isgooskii hore ee Zoobe balse hadda loogu yeero wadada 14 Oktoobar ee magaalada Muqdisho soo kabasho ballaaran ayaa ka muuqata sanad kadib isgooskan oo hadda loogu yeero wadada 14 Oktoobar ee Muqdisho hase ahaatee wali burburkii ka dhashay qarxii ugu xumaa Soomaaliya iyo guud ahaanba Afrika ee 14 Oktoobar sanadkii tagay ka dhacay isgooskan laguna sheego inuu ka mid yahay qaraxyadii ugu dhimashada badnaa adduunka ayaa ah kuwa muuqda in ka badan 600 oo ruux ayaa ku geeriyootay kuwa ayaa raq iyo ruux wali lagu laayahay ku dhawaad 400 way ku dhaawacmeen qaar kale ayaa ku dhimir beelay qarxii sanad ka hor 14 Oktoobar galgalay magaalada Muqdisho maalintaas waxay ahayd maalin murugo leh ayaad waa Aabi Cumar Xaaji oo wiil iyo gabar ka mid ah carruurtiisa ku waayay qaraxan waxa uu sharaxayaa dareenkiisa sanad kadib iyo markii uu marayo isgooska Zoobe waxa uu dareemo maalin maartay oo Soomaalida taariikh ku leh oo aan qalbiga aan ka tirtirmin bini'aadanka khaasatan dadkii ay dadka ugu dhinteen la siiyay dadkii ugu dhinteen oo dadkoodii ku waayay halkaas iyada hadda waa iska garan kartaan maartay aabo laba ilmihiisa ah oo caawini jiray oo ku waayay halkaas booskoodii inuu macnaha ay banaan tahay oo mar walba uu tawaayo alxamdulillaah rabbil caalamiin laakiin wax walba waqti ay lahaayeen waxaa jirta maalmo oo farxad leh iyo waxaa jirta maalmo murugo ah marka qarxii Zoobe wuxuu ahaa maalmihii ilaahay ee murugada lahayd ayuu ka mid tahay qof ilmihiisa meesha ku waayay anigu waxaan jeclaa markaa meesha marayo inta badan waxaan jeclahay in gaariga hadii aan heli karo darwo hadaan hala aniga inaan waxaan u maleyn lahaa inaan lamarka u dambeeya gaariga aan ku wada orod aan ku gudbi lahaa waxaan ku marayaa si murugo leh aan ku marayaa meesha markaa marayo sidoo kale Cabdullaahi Cali waxa uu hadda ka mid yahay dadka ku ganacsada hareerta hore ee laamigan waxa uuna ka mid ahaa sanad ka hor dadkii dhaawacyada halista ah ka soo gaaray qaraxan waxa uuna ku waayay xaaskiisa farbadanta ay soo gaaray wili dhaawacayna kamaan bogsan markay dhaawacu soo gaaray Turkiga la qaaday muddo 6 bilood meesha lagu soo daaweeyay kadibna wadanka ku soo laabtay isla meeshii oo qaraxa ugu saameeyo dhaawaca ugu soo gaarayna hadana shaqadii aan ka soo bilaabay yoomkii reerkii ciyaalka alxamdulillah qaraxa oo aan maqlay oo jubtiisa aan maqlayna xataa ma ahayn isla markii waa miir daboolmay waxay meesha ka dhacay waxba kama weyn muddo 12 maalin ay ka joogtaan soo naaxayaan hospital ku jiro dhaawacan arkay reer aan qabay ciyaal ay dhashay meesha qaraxaasi ku dhintay idii gabar ay habaryar u tahayba alxamdulillah gadaal dambe markii aan wadanka soo laabtay oo Turkiga ka soo laabtay oo aan soo caafimaaday oo boogtii wili caafimaadkii daawada dadkii markii hore soo gaaray iyo alxamdulillah ka soo bixisooday wadankii aan ku soo laabtay meeshii oo aan dadkii soo gaaray hadana aan ku sii shaqo abuuray shaqadii hore aan ka shaqeeyay argadan oo ay ku qoran tahay taariikhda iyo bisha uu qaraxa dhacay ayaa ugu dambeyn la suray wadadan isgooskii hore ee Zoobe balse hadda lagu magacaabo wadada 14 Oktoobar si loogu xasuusto dadkii qaraxaasi ku dhintay Maxamed Ibrahim SBC Muqdisho